warahmatullaahi tacaala wa barakaatuh daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalkii dibadda naga soo gaadhay oo amintan oo kale aad ka daawataan xarunta muuqbaahiyaha caalamiga ee Xuriyatu 24 TV warkana waa Casito Saydi la socodsiinaya anigoo ah Xamse Maxamed Axmed qodobada aan wararka idin ku hayo waxa kamid ah gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland oo sheegay in dhibaato uu kala kulmay talaalka cudurka COVID-19 oo uu dibadda ugu bixi doono xaalad caafimaad diyaarad sida talaalka cudurka COVID-19 ayaa soo caga dhigatay magaalada Muqdisho maxkamadda cadaaladda adduunka ee dhageysanaysa dacwadda ka dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ee dhinaca badda ayaa maanta dib u furtay dhageysiga dacwaddaasi xilli ay eedeynayso dawladda Kenya wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Somaliland waxa ay keentay qalab cusub oo lagu la soconayo gaadiidka dawladda xilliyada ay soconayaan iyo waliba tirikoobkooga taliyaha ciidanka booliska Somaliland waxa uu soo xiray tababar saraakiil ciidan oo booliska ah waxaana uu siiyay intaasi waa qodobada wararka ugu doorka roole aatan u diyaar garooba kuwaas oo faahfaahsan diyaarad sida talaalka cudurka COVID-19 ayaa soo caga dhigatay Muqdisho sida warbixintan inoogu hayo wariye Cabdiraxmaan Saciid garoonka diyaaradaha eedan cad ee magaalada Muqdisho waxa maanta ka soo degay diyaarad ay leedahay hay'adda cunnada adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan WFP taasi oo sideed talaalka cudurka COVID-19 oo mar labaad soo laba kacleeyay talaalkan oo ay la wareegtay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa waxa loogu talagalay ka hortagga xanuunka COVID-19 oo farabaan ku haya Soomaaliya xogta talaalkan iyo keenista ayaa waxa hore bulshada ula wadaagtay wasaaradda caafimaadka oo ku hawlaneyd dagaalka ay kula jirto safmarka coronavirus sidoo kale waxa munaasabada ay dawladdu kula wareegaysay talaalkan ku sugnaa mas'uuliyiin ay ka mid yihiin ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Swain meelaha talaalkan la geyn doono ayaa waxa kamid ah isbitaalka oo loo gaar yeelay dadka uu soo ritay xanuunka safmarka ee coronavirus talaalkan oo ay soo saartay jaamacadda Oxford ee dalka Mareykanka dhimashada iyo cudurkan dadka uu soo ridanaya ayaa bariyihii dambe sare u kacayay gudaha dalka Soomaaliya iyadoo ay dawladda Soomaaliya ay xayiraado hor la soo saaray maxkamadda cadaaladda adduunka oo maanta bilowday dhageysiga dacwadda Kenya iyo Soomaaliya dhinaca badda sida warbixintaas inoogu hayo wariye Warsame Cali Warsame waxaa maanta gelika dambe lagu wadaa in maxkamadda cadaaladda adduunku ay ka bilowdo dhageysiga dacwadda badda iyo Kenya ila wareedyo ayaa xaqiijiyay in si lama filaan ah Kenya isaga baxday dhageysiga muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya qareenada matalaya ee Soomaaliya oo gudbin doona maanta doodahooda ay ku difaacayaan muranka badda ee kala dhaxeeya dalkaasi Kenya bishii hore ayay ahayd markii ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay garabka ku dhufatay dalab uga yimid dhanka Kenya oo ay codsanaysay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda badda taasi oo ay sabab uga dhigtay xanuunka COVID-19 oo saameyn weyn ku haya dalkaasi Kenya dhanka kale Soomaaliya ayaa diyaar garow dheeraada ka muujisay iyadoo miiska soo saartay afkaarta ay ku difaacayso badda ee kala dhaxeeya dalkaasi Kenya wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Somaliland waxa ay keentay qalab cusub oo lagu la soconayo gaadiidka dawladda sida warbixintaas inoogu hayo wariye Ridwaan xukuumadda Somaliland ayaa maanta soo bandhigtay adeeg ila soco oo lagu la soconayo dhaqdhaqaaqa gaadiidka dawladda 700 oo gaari oo dawladdu leedahay ayaa ilaa hadda la diiwaan galiyay adeegan ayaa gacanta ka geysanaya in gaadiidka dawladda lala socdo goobta ay marayaan iyo xilliyada ay shaqada ku jiraan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gaadiidka taliyaha ciidanka booliska Somaliland waxa uu tababar u soo xiray saraakiil ciidan isagoo taliyuhu la dardaartamay saraakiishaasi sida warbixinta warkaas inoogu hayo wariye Yaxye Maxamed
taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland sareeye guute Maxamed Aadan Saqadhi Dabagala ayaa kelmado dardaaran iyo dhiirigelin u jeediyay saraakiisha ku jirta kuuliyada saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliland. Saraakiishan ayaa maalmaha afooda inagu soo haya ka qalin jabi doona kuuliyadaasi. intaasi waxa inoogu eeg warka telefishinka Xuriyo oo habeenkani caawa uu idila socodsiinayay anigoo ah wariye Xamse Maxamed Axmed. warkan mid la mid iskugu imanayno waxaan idinka tagayaa amaana Allah iyo ismaqal dambe xiisa badan.